بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhamaantiin waa salaamantii meel walba adduunka ka joogtiin waa arimaheena oo maanta ku tusin doono qayb ka mid ah sida loo isticmaalo software-ka desktop icon toy dad badan ayaa waxay isoo weydiiyeen sida loo isticmaalo software-ka desktop icon toy waxa uu qurxiyaa oo uu hagaajiyaa items-ka ku saaran shaashada computer-kaaga sida kaaga muuqata desktop-kan okay software-kan waxaan ku tusinayaa sida uu degsan lahayd iyo sida uu install garan lahayd iyo qaabka uu isticmaali lahayd computer-kaaga software-kan waxaad ka heli doontaa website-kan ku muuqda waxaan ku soo qori doonaa description-ka video-ga kuwan waa serial number-ka halkan waa username serial number-ka okay haddii aad rabto inaad soo degsatid software-kan waxaad aadi doontaa aad booqan doontaa website-kan kadib waxaad arki doontaa laba item oo macnaheedu yahay system-kaaga computer-kaaga noocuu yahay 32 bit iyo 64 bit macnaha 32 bit waa 32 bit 64 waa 64 sorry okay marka system-kaaga nooca uu yahay sidaad ku ogaan kartaa waxaa fiirinaysaa my computer right click kadib properties ayaa taabanaysaa waxaa arki doontaa nooca computer-kaaga uu yahay version-ka ama system type-ka computer-kayga aniga hadda isticmaalaya waa 64 bit operation system marka waxaan degsanayaa nooca 64 bit hadda waa ii degsan yahay laakiin waan ku tusinaysaa u degsan lahayd hal mar ayaa click siinaysaa isla markii halkan ayuu kusoo degi doonaa okay markuu soo dego kadibna waxaad samaynaysaa waad riixi doontaa si aad ugu install garaysid computer-kaaga hadda waan taabanayaa midkan hoose sidan ayaa kusoo baxaysa isla markii run ayaa taabanaya isla markii wuxuu ku weydiin doonaa inaad dalbatid luqadda uu kugu shaqayn doono hadda halkaas soo furto waxaad arkaysaa luqado badan Isbaanyool English Faransiis Ingiriisi laakiin waxaan dalbanay aniga English inaan luqadaha kale ma u aqaaniba waxaa fahmaysid ayaa fiican inaad dalbatid okay ayaa taabanaya kadib next ayaa riixaysaa I accept the agreement kadib next markale next wuxuu dhahayaa computer-kaagan uu ku jira software-kaaga markale markuu shubaya haa aan dhahayaa leen computer-kayga hore ayuu ugu jiray so yes aan taabanayaa kadib wuxuu ku dhahayaa shaashada kuu saara isagoo shortcut ah waa ka dalbanaysaa haddaa rabtid kadib next ayaa dhahaysaa install kadib finish ayaa dhahaysaa okay uu dhameeyey waa install garaysay marka aniga hadda wuxuu tusinaya desktop icon toy unregistered 0 days left macnaha wuxuu dhahayaa software-ka computer-ka wuu ku jira laakiin ma ahan mid register ah oo shaqeynaya ma uu dhacsan yahay uu dhahayaa marka waxaan ku tusinayaa sida aad macnaha serial number u gelin lahayd oo kugu shaqeyn lahaa weligiisa marka halkan waxaa igu qoran serial number-ka iyo maaragtay username marka serial number-ka waa lambarkan username-kan waa BPS marka desktop icon toy halkaas ayaad ka arkaysaa marka oo ku sameynaysid registration ama active ay ka dhigaysid waxaad imaanaysaa desktop icon toy waa qaabkiisa waa noocan right click ayaa dhahaysaa kadib waxaa aadi doontaa options marka option dhada register halkan ayaa kusoo baxayso halkaas waxaa ku qoraysaa B capital iyo P capital iyo S capital waa username-ka password-kana waa kan hadhow description-ka video ayaan kusoo qori doonaa copy ayaa ku sameynayaa kadibna halkan ayaan imaanayaa paste kadib okay ayaa taabanaysaa wuxuu ku dhahaa isla markii successful waa la register gariyey marka wuxuu ku dhahayaa restart desktop icon toy to activate it dib u bilow si aad u active garaysid sidaas ayuu iga dalbaday okay marka hadda waxaan sameynayaa qaabka isu bedeli doono screen-ka hadda waxaan sameynayaa desktop icon toy halkan ii yaalo ayaan ka baxayaa exit ayaan dhahayaa si aan dib ugu soo noqdo inuu ii shaqeeyaan doonayaa okay desktop icon toy aad soo furaysaa hadduu shaashada kuu saarnayn waxaad ka helaysaa halkan start menu kadib halkaas ayaa ku arkaysaa hadda halkan kawisid magacaas ayaa halkan ku qoraysaa desktop toy isla markii waxaad arki doontaa inuu kusoo baxo desktop icon toy hadda waxaad aragtaa inuu shaashadeeda ay isbedeshay aad ku arkaysid qaab kale sidan hadda waa star ama xidig haddii aad rabtid inaad qaabkan bedeshid waxaa u bedelaysaa halkaas hoose ayaa imaanaysa mar walba inta ayuu ku jiraa desktop icon toy-ga waa imaanaysaa kadib right click ayaa taabanaysaa halkaas ugu korayso waxaa la yidhahdaa layout halkan waxaa intaan dhan items-kan waa qurqurxin waxyaaba badan ayaa ku jira oo diyaarsan haddii aan midkan kore taabto aan dalbado clock ama saacad weeye haddaan taabto wuxuu noqonayaa qaabka saacadda uu u shaqeynayo haddii aan bedelo mar kale layout
star haddaan imaado 5 point warta star 5 gees 5 xidig macna xidig 5 geesood 4 geesood 6 geesood nooc rabto haddaad dhahdo 5 geesood noocaan weeye haddaad dalbanaysid waxyaabo kale sidaad soo qaad 4 geesood haddaan dalbado sidaan ayuu noqonayaa okay mar kale kusoo noqo halkan waxaan dalbanayaa nooc kale halkan haddaan imaado triangle aan dhaho wuxuu noqon doonaa 3 geesood ama xagal adiga waxyaabo badan ayaa ku jira nooc markaas adiga ku cajabiyo dooqaaga ayaa ka ciyaaraysaa midka markaas ku qancada aad ka dhigan kartaa daartisan ayaa ka dhiganaysaa waxyaabo badan ayaa ku jira oo masha Allah daartid waxaa ka dhigan kartaa love aad dalbanaysaa nooc markaas adiga ku cajabiyo maaragtay isdhihiisa midkan aan qurux badan daartid midkan ayaa ka dhiganaysaa hadba nooca adiga isleedahay wuu wanaagsan yahay ayaa ka dalbanaysaa waa rajaynaa inaad maaragtay ka heli doontid software-kan waa free waana ku shaqeynaa weligiisa serial number-kan anigaa kuu soo qoraya kulli shay haddii aad u baahan tahay caawinaad kale haddii aad fahmi weyso aad soo xiriiri kartaa waa arrimaheena oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh